واستتر وقرصومي هو الأكواي والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان جنكينا خلقناه وحن كابورنا من قبل آدم كهر أما بني آدم ككهر من نار السموم نار هلعيس عالم كان إنجا قرصون عالم الجن والشياطين والعفاريت والأباليس عالم كاس وعالم كوكب كان نقوه هليا وأنا عالم تحقلين تيساله نورش إننا الراد بدن كله وحيسكت يعني عالم ككرين جدان ملايكة وحيابها يسفيق يعني وحيقانا وحيكسر بفصلات كلمة مركي كجسوك وليستان إن استغالية استغاش كدران أيين حديث الصحيحة كوهينا النبي قال قورني عليه الصلاة والسلام مركا الله إيجا حاجة درجة إيه كرامة إيه شرفت ويكهو سيان بني آدم ما دام إلهي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن بدنا خلق كانوا أبورنايا آدمها كديراد لبا إلهي سيدا دراديد أيا مركا أي كوغو ليستان بني آدم أما بني آدم كلفت قودو إيجا أي وحسوم مودان أيي دبابنا إسبرارين أيام مخلوقا جنك الله يراهضو وحا إريقا قرسوني دا اللوغو استعمالي إندهنا أركين isagu sawayna arka makhluuqa jinku markuu tabiicadiisa caadiga ah leeyahay isagu wayna arka inagu sama aragno bidaliil qawli llahi tabaaraka wa ta'ala innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu laba jeer baa qofka bini aadmigihi uu jinka arki kara jin isbedelay oo suurad kala yeeshay oo dayday ah oo xuduudii ka soo gudbay oo qofka bini aadmiga inuu daandaansada raba marka isagoo oo suuradiisi iska bedelay waa la arki karaa saynu ka warrami doono mar kalena waa la arki karaayo marka qofku isagu uu daandaansado oo cilmigan ruuxaaniga la yiraahdo arwaaxda lagula xidhiidho ruuxaaniguna waa caalam jinka bay u jeedaane waxaa jira markaa erayo iyo qoraallo iyo afcaal qofku haddii uu sameeyo xijaabkan inoo dhexeeya uu furmayo qofkana markaa wuxuu gelayaa albaab aan weligii ka furmaynin qofku hadduu baab kaa galo baab al-ittisaal al-arwaax hadduu la ittisaalo wuu ku xidhmaa albaabkaasi dib dambaysana ugama furmo aakhirkana iyagunbaa dila mar hadduu caalamkaa la ittisaalo آخرك يجون بدلا. مرضو عالم الله يتصاب آخرك يجون بدلا. سين سورة كأرك الضمة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويبررينو كبر بيوكر بيانو وحيد هذين تكوين دامي بكل هذا وحنا سوم مودين ولا ضمه سيدان تذكو بيها ما بني آدم كويها يوم بقار قال أي قار إسلام قار أهل الجنة هي قار أهل النار labadaba waa leeyihiin sida bani aadamku wuxuu u dhibo mid wax dhiba iyo mid aan wax dhibin ay u leeyihiin ama mid gaar iyo islaam ayuunba iyaguna yihiin alla yidhi alladina yaakuluuna arriba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu alladii yatakhabatuhu ashaydaanu min almas qofka ribaaconaha ay u silayihin qiyaamaha isagoo heedada oo circiira ayuu imanayaa sida uu circiirayo qofka suuxsan ama jinku uu dardaray oo kale marka sabab kastaba ha ahaato qofku waa laga yaabaa mar waa ma ka cadhaysiiyey ama wax dhibay ama iyaguba ay ku xadgudbeen ay ku gardaroodeen intaba waa iman karaa dhib haddii la daweynayana habka loo daweynayaa waxa weeye hab mashruuca oo aan ahayn in ama xoolo loo qalo ama cadar furcasa la siiyo ama durbaan fara badan loo garaaco dhiib laga waraabiyo waxama
kullu daalik waxyaabahaas oo dhammi iyagu waa laaluush waa hiblaayo saar baa laga tumaa sanadkiiba mar 6 biloodba mar waxa weeyaan iyagii oo la laaluushayo marka ay wixii la siiye ka hirqadaan ayay ka yara laydhanaya meel fogna tegi maayaane way ku soo noqon waxba laga yaabaa hadday 5 sanaba mar u iman jireen inay sanadkiiba mar uga dhigaan 6 biloodba mar bishiiba mar oo ay sii kordhistaan laakiin habka lagu daweynayaa waxa weeye dikriga iyo qur'aanka oo joogto ah qur'aankaasan waa shayaadiinta noocaas ayaa lagu daweynayaa hab saxiixa weeye ayaa lagu daweynayaa hab saxiixa weeye culimada tafsiirku waxay yidhaahdeen jinkana qayb shayaadiinaa ku jirta insigana qayb shayaadiinaa ku jirta marka jinku markuu u taag waayo mu'minka inuu ambiyo wuxuu isku dayaa inuu u soo hiishado ama u soo gargaarsado mid shaytaan oo bini aadmiya shaytaan al-insi ayuu u soo gargaarsadaa si uu wadada uga leexiyo shaytaanka insiga ayaa ka shar badan oo ka dhibaato badan shaytaanka jinka sababtooy tahay shaytaanka jinku markaad ilaahay aad ka magan gasho uu kaa joogsanaya laakiin shaytaanul insigu xataa acuudu billahi kaaga tegi maayo shaytaanul insigu waana ta keentay had iyo jeer in bini aadmiga xumxumi ay ka ta'siir bataan oo ka raadayn bataan shaytaanka jinka marka shayaadiintu waxa weeyaan wixii madax adag oo dhan marka haddaba idin kala caddaatay jin iyo shaytaan waxay kala yihiin jin waa makhluuq madax bannaan wuxuu ka abuuran yahay aan ka warrami doono siduu u nool yahay aan ka sheekayn doono wuxuu cuna aan ka sheekayn doono ma isguursadaayo ma tarma aan ka sheekayn doono